maanta horta ma qiyaasi karo farxadda aan igu jirta anigoo boora ma joogo oo isbitaalkan dhismihiisii dadkii ka soo qayb galay ee aasay ahaa oo aan tacab badan u maray qurbaha isagoo baraf badan ee dhacaya aan aqalada ku garaacaynay ururka haweenka ee dhisay dadkii abaabulay ee dhisay ee dhidbaa u taagay aan ka mid ahay waxaan aad u faraxsanahay inaan arko maanta wixii aan qabanay midhihiisa markaad aragto waxaad qabatay midhihiisa ayaa qurba joogga ku soo dhiiranaya maanta waxa weeye tusoo taabsi baan idhaahno maadaama adduunyadu isku dhowdahay oo miidiyaha la iska wada arkayo wixii la qabtay in la arko marka la arkaa lagu dhiiranaya waxaan jaaliyadii hablihii Norway u mahadnaqayaa wixii aan qabanay midhihiisii maanta waan aragnay horeyna waan u aragnay imikana waan arkaynaa waxaan kaloon aad halkan ugu mahadnaqaya mahadnaq aan la soo koobi karin aan uga jeedinaya Nadiira Cilmi Coofle oo igu dhiirisay anigayga maanta halkan taagan in aan dib u dhiska iyo dib u habaynta ka qayb qaadano oo qaybta ugu weyn qaadatay subax walba iyadoo shaqo ka timid telefoon soo diris aad baan ugu mahadnaqayaa wixii aad qabatay Ilaahay ka jisaysiyo in adeer waxa iyo wax ka badan uu ina sugayaa dalkeeni uu inoo baahan yahay markaan aragno wixii la qabtay midhihiisii iyaynu inaguna soo kordhinaynaa waan sognahay dadkeena qurba joog aad baan iskugu warhaynaa hadii jeer waxaynu ku xamanaa dadka qulqul jooga waxaan soo dirnay muxuu qabtay maanta waa ka aynu arkayno gudoomiyaha gobolka ee maantaan isbaranay aad baan ugu mahadnaqayaa waxa wanaagsan oo qabtay waa shaqadii loo idmaday ee dawladdu u soo dooratay hadduu qofku shaqadiisa ka soo baxo wax weyn buu qabtay anagu haddaan qurba joogay gobolka u dhalanaynahay oo anigoo Sacaade Cabdi Faarax oo dadkii awoogay Faarax Googo iyo dhidbaa u taagay Boorama oo ku dhaadanaya inaan reer Boorama ahay oo haddaan qurba joogay hadii kale aan ku dhaadanaya inaan original Boorama ahay oo dadkii dhidbaa u taagay haddana mas'uuliyadii waa inaan ka soo baxnaa kanoo kaliya baahidu ma aha waxaan dhammaan u sheegayaa qurba joogga reer gobolada Awdal u dhashay iyo Selal in ayna baahidu inoo taalaa ayna yareyn markaan inagu wax soo qabsano ayay dawladda iyo gudoomiyaha iyo madaxda dawladdu inoo soo dirtay wax inoogu daraysaa laakiin hadii jeer sida wadamada aynu joogno waan inagu wax la nimaadnaan idhaahna baahiyaha soo weydiinaa dadka wadanka jooga ee inooga warhaya marka maanta waan ku faraxsanahay inaan arko baahidii wadanka gobolka taalay qaybtii aan wax ka qabanay in wax laga qabtay qaybtii abaaraha weynagii aan ka soo qayb galay Faadma Daahir baan uga mahadnaqayaa halkan oo qaybtii abaaraha ka soo qayb gashay aniga Sacaade ka qayb galay qaybtii abaaraha Leila Cabdiraxmaan Qaadimi aan uga mahadnaqayaa hadda waxay noo yaal shubankii oo farbaas ku haya waa inaan ka soo qayb qaadanaa oo imika halgan ka galaa qolada reer Norway baan la hadlayaa bishaan halkan joogo waan soo guray raboodka waan soo qorayaa waa inaad sii dadaashiin hablaha aan wada magac dhabay ee sharafta badan Dr. Yacquub burjadkiisa waan ku jirnaa anagu haweenka gobolka Awdal hadaana qaybta Norway soo dirta lacagtan ka midnahay ee dawladda Swedish lacagta hadaanad ula tagin wax kuma siinayaan wadamada cadaanku waa sidii oo kale halkana inagu markaan wax la nimaadno hadaan qurba joogii gobolkana kolba baahidii jirta ayay inoogu daraysaa dawladuna wixii awoodo waxbay naga ma garanayaan waa dadkeenii waan u mahadnaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsantiin Faadumo Daahir baan u mahadnaqayaa Foosiyaan u mahadnaqayaa dhammaan asxaabtaydii reer caafimaad anigoo umurso ka umurso oo bari hore nursing care-kiisa ka baxaya 28 bahda caafimaadka kamida aad baan idinku mahadnaqayaa hawshii aad qabateen Ilaahay ha idinka jisaysiyo qof kasto dalka jooga iyo qof kasto dibadda jooga intuu ka qayb qaatay waxa weeyaan Ilaahay ka jisaysiyo waxaan imika halkan ka sheegayaa in aan anigu mas'uul ka ay keligay oo dhisayo store-ka oo Dr. Ismaaciil sheegay classmate-kaygii director-kii hospitalka aniga oo Sacaade Cabdi Faarax oo xildhibaanka Norway ayaa dhisaya kaas cid kale loogama baahna ana la isoo qiimeynaya ana dhisaya waan ka wada hadalay dhakhtarka gudoomiyana oo ka maqlay xogayayba aad baad u mahadsantiin dhamaantiin intaad igu soo casuunteen soo sharafteen Ilaahay idin sharaf